waxaan leeyahay Somaliland waxa wada dega beelo kala duwan hadiye jeeraale waxa soo baxa cabashooyin dhinaca qaybsiga awoodaha iyo dhaqaalaha ee Somaliland sidee ama maxaa idin kaaga qorshaysan haddaad ku guulaysato in midnimada aad soo celiso iyadoo la ogyahay in doorashooyinkana lagu qaybsado بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كحسبية وحصل لقوا إن لهلا سومالي لان ضدك ودلي هاي ولو سمي هاي سامي قبسو وارمت تاجن وعبشو يكون متاجنين وحنو سدوا إيجينا عبشو ينكا كتشرة ديجانا دقاركود قارهم بريقة هي قلباتك وحي حكومته قعنتك كويسة أما مدحوينه قعنتك كويسة وديسة وحنو بلن قاضينا إن أنا الشعب السومالي الآن سيستمان وقايبينه حلالك كلا قرنك وأنا سمي سامي دونه مدحوينه أو الدولية وحكلا maamul kan daadajinaya ila tuule ayaan daadajin doonaa insha Allah taala waxaan sameeynaa haddii la yiraahdo anu qabiilka iyo Christian ku qaybin maynee qof kastaba aqoontiisa wax lagu siinaya dadku uu sinaayo wax leeyahay every Somaliland citizen have equal rights wuxuu xaq u leeyahay shaqada way u siman yihiin tacliinta way u siman yihiin caafimaadka way bixinayo horumarka way u siman yihiin anagu reer isku yeerimayno gacantana isku saarmayne qof kasto reer Soomaaliland way noo siman yihiin waa Soomaaliland wada Soomaaliland sharci midaynaya ayaan siinayna siyaasad midaynaysa siinayna tuulada iyo degmada iyo gobolka way kala madax banaananayaan waxaan sameeynaa bottom up grassroots waxaan empowerment sameeyno hoosta ayaan ka soo dhisnaa dadka magaalooyinka weyn oo laga dhismaayo caasimada qura noqonaysa waxaan fidinaynaa wasaaradaha oo wasaaradda cabashooyinka ka jira gobolada qaar waa jira laakiin kuma raacsani in la soo qaranku waa midaysay waxaan wax uga qabanaynaa waxaanu u furaynaa dood ciddii cabasho qabta in laga dhagaysto cabashadooda haddii ay gar helaanna gartooda la qaato oo waxa ay tabanayeen loo saxo waxaan bogsiinaynaa in horta dadka aan isugu yeerno isbartaan ogaadaan goboladu oo ay dadka waxa laga yaabaa inaanay dadka waxa lagu doodayaba aanay ka wada dhegsanayn marka waxaanu furi doonaa in ay goboladu waxay kaga cabanayaan dowladda ay soo bandhigaan oo ay xor u noqdaan oo laga wada hadlo dabeetana waxa lagu heshiis yahay halka lagu xaliyo waxaanu ka soo horjeedaa in si aan disteedka waafaqsanayn dalka wixii hanti ah ama awooda wax dastuurka ka baxsan aan lagu qaybin ee loo qaybiyo sida dastuurku tilmaamay oo lagu adkaado sharciga dalka u yaal aad baad mahadsantay gudoomiye cirro maxaad kaga duwan tahay labada musharax ee kale arrinta ay maka lafteeda adaan ku soo celiyo waxaan leeyahay kaga duwanahay in si mug leh loo tixgeliyo cabashooyinka ka imanaya gaar ahaan deegaanada bariga Somaliland iyo galbeedka Somaliland in si cilmiyeysan loo eego in la dhageysto cabashooyinkaas in sidii wax looga qaban karayaba iyadoo lala tashanayo deegaanada cawday iyadoo la tixgelinayo shuruucda dalka iyadoo la tixgelinayo isu tanaasulka Somaliland in wax laga qabto waxa kale oo aanu kaga duwanahay sidaanu sheegnay inaanu diyaar u nahay inaanu xilalka qaranka ee aan madaxweynaha u noqdo in si siman oo cadaalad ah loogu qaybiyo qaybaha kala duwan ama bulshooyinka kala duwan ee qaranka Somaliland waxaanu eegi doonaa in Somaliland laga baxo qadiyadaas marka dambe si gradual ah oo lagu dhaqmo in qof waliba uu u sinaado dadka haddii shaqo la doonayo iyo xil la doonayo marxaladda horena ay noqoto marxalad transitional ah oo lagu daweynayo
xanuunadaa hore u jiray waxaanu doonayna in la abuuro somalilan dadku u siman yahay oo cabasho gobol iyo deegaan khaasi laga baxo oo aanu jirin mar dambe laakiin muwaadiniintu ay u siman yihiin wax kasta oo dalkani leeyahay hadduu khayraad leeyahay hadduu shaqo leeyahay hadduu darajo leeyahay intaba asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu waxaanu kaga duwanay labada ninba haddaaba iyagu orori bilaabeen inay reerala heshiiyaanoo dowlad xulufooyin ka samaysa beelaha qaarkood kuwii kalena la rasaaylaangareeyey ayay hadda sameeyeenba midna garaangir buu sameeyey midna jeegaan buu sameeyey marka reerahaasuma ii waxsanyaanu dadku wuu ii sinaanaya bariya galbeed ma jiriyo every somaliland citizen wuu siman yahay qabiil u tegayaana ma jirto qabiilkan waanu aasinaa 4.5 wax ku qaybin mayne waxaan ku qaybinaa qof kastaba aqoontiisa cilmigiisa iimaankiisa sharaftiisa ayaan ku qaybinaa laakiin waxa la qaybiya maaha waxaan sameeynaa in tuulo kastaba ay shaqadeeda qabsataa oo inay degmadu qabsataa wadanka Finland waa wadan yar haddana 440 county buu leeyahay wuxuu saa u yeelatay wax la daadisay maamulkii dhaqaalihii baa la daadisay saasaanu yeelinaa waxaan sameeynaa insha Allah taala maalin kastoo khamiisa taambuug baan sameysanayaa ciddii doonaysa ee cabanaysa way imanaysaa ma rabadaanta rabadaan waxaan ku soomi doonaa gobol baan ku soomi doonaa si aan u ogaado gobolka waxa ka socda marka aanu dadka sinaan baan keenayaa cadaalad baan keenayaa oo sharci siman baan seenayaa laakiin beelo u qaybin maayo waa ogtiino anigu qabiilkayga umaan dirin waxaan u diray dadka weydiisay reer Somaliland buu ahaa suldaankaygii reer umaan dirin iyo taasoo bay nagu soo celinayaan waxaan kaga duwanahay labadooda dawladdan ka mid bay ahaayeen aqligan ay hayaan maxay ugu biirin waayeen dawladda hadda ay ka mid yihiin labadooda madaxu baarlamaanka u hayay midna wuxuu hayay wuxuu ahaa xukun xaakimkii maxay hakarayeen siiraayo maxay u contribute garan waayeen waxaan idin sheegay labaduba khaatimo way ka soo horjeedeen heshiiska cirna wuxuu yidhi idigu heshiin aan idin heshiiska markaan aanu soo baxo yaa heshiisii sameeynayaaye cirna wuxuu yidhi war maxaa ku falisaan nimankan khaatimeen waqtigeed ka lumiyay marka labadu ka soo horjeeda ana ogeeyeen oo ka shaqeynayay arintaasi marka ninka dadka mideynaya ee Soomaaliya halka ka maatay gudoomiye Faysal waxaan kaga duwanahay waa ka xogogaalsanahay waxaan kaga duwanahay annagu hawsha xisbigii xilka hayay waan mahado hawlaha iyaga waanu gudgalay qaarna waanu xalilay qaarna xalilaadooda hadday dhammaanaysaa khaatuma ka mid oo caawa aynaba madaxweynaha arrinteeda u fadhiyo oo hadda soo gabagaboobaysa cabasho hore awal ka timid baa jirta oo aanu xalinay intaan dadka dhegaysanay waxaanu kaga duwanahay waxaanu ogolahay oo waay aragu nahay ciddii cabata inaanu wada fadhiisanno cabashadooda dhegaysanno kadibna bogsiino wixii cabasho ay halkaa ka soo baxay la isla qaato waxaanu kaga duwanahay dadku waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan waa hawl aanu qabanano badankeedii xalilay inta dhibanna aanu hadda daryeelayno annagu ma nihin bilow iyo mala awaal iyo waa yeeli doonaa taa ma hayno waxaanu wadnaa hawl socota oo midhaheediina la arkay haddana gebagabadeedii dhowdahay sidaa darteed iyagu kuba inooma odhan iminka waanu la hadlaynaa shir baanu u furaynaa waa la yeeli doonaa annaga ma aha wax iyaga waa practical waxaan ku soo gebagabaynayaa arrintu waxa u aasaasa in dadkuna isla fahmo waxa dhiman oo isla qaato sharcigana lagu adkaado taasina waa ujeedadeeda koowaad iyo tallaabada ogaad ee kaga doonaya labada qole kalaba